magaalada Bara waxaa si rasmi ah loogu daahfuray urur cusub oo lagu magacaabo Jilani Development kaasoo ah urur aan faa'iido doon ahayn oo loo aasay in uu bulshada reer Bara wax u qabto. Ururkan ayaa diiradda saaraya horumarinta waxbarashada, caafimaadka iyo ka shaqeynta daryeelka dadka danyarta ah, gaar ahaan barakacayaasha iyo kuwa aan haysan hoy. Mas'uuliyiinta ururka ayaa sheegay inay doonayaan in uu noqdo halka dadka jilicsan ee aan heli karin adeegyada aasaasiga ah. Xafladda daahfurka ayaa ahayd mid si weyn loo soo agaasimay, waxaana ka qayb galay gudoomiyaha degmada Bara ahna duqa degmada Mudane Cumar Cabdullaahi Maxamed, ku-xigeenadiisa, xubno ka mid ah golaha deegaanka degmada iyo marti sharaf kala duwan. Dadkii goobta ka hadlay ayaa si isku mid ah u muujiyay sida loogu baahnaa urur noocan ah oo daryeela dadka aan codka lahayn. ururkani waxaan ugu talagalnay in dadka bulshada reer Baraawe wax weyn ay u tarto sida horumarinta waxbarashada, horumarinta caafimaadka, sidoo kale ururka in ay ka hortagto cudurrada. Sidoo kale ururkan waxaa loo aasaasay dadka oo barakacayaasha degmada hoy ka dhiganayo in ay ururka caawiso hooyooyinka iyo dhallaanka. sida hadda waxaa jiro magaalada Baraawe meelo dhaadheer oo dadkii aan MCH u dhowin sida Abasiibo oo kale in MCH laga suurtageliyo. ururkani marka waxay xiriir weyn la yeelan doontaa dhammaan hay'adaha caalamka si ay waxqabadna ugu noqoto degmada Baraawe. Cumar Cabdullaahi Maxamed, gudoomiyaha degmada Bara ahna duqa magaalada oo ugu dambeyn la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ururkan loo baahnaa xilli hore balse ay suurtagal noqotay in maanta degmada laga daahfuro. halkan aan soo daraynaa soo dhaweyn iyo daahfurba niman dhalinyaro ah oo deegaanka ka soo jeeda oo dadaalay, maskaxdooda toojiyay, isku dayay waxyaabo badan. ururka Jilani la baxay doonayana inay maaragtay horumar higsadaan, yacni dad higsi la waayay dadkaasi. marka dad dhalinyaradaas ayaan rabnaa dhiirigelin inaan u samayno oo aan maaragtay insha allahu tacaala aanu soo dhaweyno oo aan insha allahu tacaala barnaamijkoodiina aan u daahfurno si ay deegaankooda ugu shaqeeyaan wax allaal wixii karaankooda. hadday ummad kale oo caawiso helaanna falilah alxamdu, haddii ayaga ayuu waa maaragtay contribution sameynayaanna falilah alxamdu. marka waxaan idin leenahay ururka Jilani soo dhawaada insha allahu tacaala. magaaladiina waaye u shaqeeya, dadkana dadkiina waaye. inaad u shaqaysaanna aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay oo aad u soo istaagtaan inaad u shaqaysaan dadkiina. aad iyo aad ugu faraxsanahay. dhalinyaro rag iyo dumar iskugu jira oo dadaalay ayaa tihiin. dadka idinkoo kalena idinkana waa idin soo dhaweynaynaa, kuwa idinkoo kale inay dadaalaan doonayana waa soo dhaweynaynaa haddii la yiraahdo. aad iyo aad soo dhaweynaynaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa dhammaan marti sharafka ka soo qayb gashay daahfurka hay'adda ururka Jilani Development. halkan waxaan doonayaa in aan ka dhaho xoogaa erayo. Jilani Development Organization waxa ay u taagan tahay in ay ka jawaabto baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada, kuwaas oo ay ka mid yihiin waxbarasho la'aan, caafimaad xumo, biyo la'aan, shaqo la'aan iyo fursad la'aanta ay ka kulmaan qaybaha nugul ee bulshada, gaar ahaan haweenka, carruurta iyo dhalinyarada. himiladoodu waa in aan dhisno bulsho leh fursado siman oo horumar leh. aragtideedu waa bulsho caafimaad qabta, wax barata, wax soo saarta, nabad ku wada nool oo la jaan qaadaysa horumarka caalamka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندمين أخكودو بنتي سيد بكر جمالة قدومي كحكين كلابات أرمها بلشدة. أنا أنقول له تشيكو كركا كازي تياميني دقمة براوي أما تشيكو كركا دقمة يا هولي يتو يا كازي. أنا أنقول له تشيسمي مخفنقول دافوري إيو دوا هيها Jilani wallahi ما شاء الله كركا موي تياميني تشوي فنقلا هيها ما شاء الله مجرد نكوا ترجلا خير كواو wanakicheleta la khairi nyingi wao na kuwaletea masakini wao chintu
kuwawa naqfanyiliza wanra waje dadka duruufeysan kuwawana kuwa shiklajintu insha Allah na ku ambila nana ko daafuri fungilin gudoomiyaha degmada Baraawe nana waa idin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo Aamine Maxamed Cabdullah ururka Jelaane dhalinyarada inay muxuu ahaay aasaan magaalada urur ay ka aasaan waa ku faraxsanahay waan ku mahadsan yihiin haddii alla idmo marka waxay bahabaay hoosh ay galeen waa wanaagsan tahay inay hore u sii wadaan aan jecelahay insha Allah ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان انت فليان كل نكس وحق السلام يا نسب كيس مرة بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت ولدان جلاني أتبع حسن تاي النبوة كهلين قلاه دقن كديجان كديجان براوي أن مقالة ما هذا كفر قلبي براوي وسود وينا وأن ديارة أمنا إن الشقينو وحن لنا هيسود هذا ولا ليالو دبك كل وحول بإلهي مهم الله نكساره إلهي بوخساره لكن دالكين وحن ربنا إن دال قدرتان دالشان أنين وإذن قرب تاقلنا إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka salaamayaa qof walba madhabka uu ku fadhiyo aan ku salaamay salaanka islaamka aan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anigoo isku duwaha wasaaradda habeenka xuquuqul insaanka waxaan maanta meeshan ku dhaweynayaa oo lagu suubiyay daafur ururka Jelaane maalin anigoo isku duwaha wasaaradda habeenka Xaawi Ibraahim Maxamed maanta waxaan aan meesha daafur lagu suubiyay hay'adda Jelaane amaanta ku soo dhaweynayna si gacmo furan anagoo habeen ahaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay si qurux badan u keentay fursad ayna siisay aan meeshan ku imaano aan is aragno is barano ma sha Allah alxamdulillah waxaan ilaha hay'adaha ka dambeeya inay mar walba noo soo garab istaagaan habeenka iyo dhalinyarada iyo wixii shaqo u baahanba in garabkeena istaagaan oo anagana aan qalbigeena fiican u istaagno aan ku shaqayno walaalaheena aan isla shaqayno gacmo furan aan isku qabano hay'adda Jelaane waxaan leeyahay soo dhawaaw gacmo furan ku soo dhawaaw assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh وما سنتين آدي على ما سنتين وعاد مركب السلامية قدومي أرمى البشرة أنا بسمعه قدومي نبدأ أرمى البشرة قدومي أولينا قدومي أولينا قضيان شغلك قول الأميرة بعد الصحافة تمام بصورة جرياش أولين تمام تولي تجيبتم تمام المسلمين Jelaane development hay'adda Jelaane development organization waxaan diyaar u nahay inaan bulshada Soomaaliyeed maadaama marka maanta maadaama
equality and clean water and sanitation. We would be grateful for the opportunity to submit a full project proposal to engage in further dialogue regarding partnership opportunity. Thank you for your consideration. Thank you for your consideration. Sincerely, this is Abdul Qadir Muhammad Abdi, and the next guy here is Muhammad Ali Yusuf, and Ahmed Hashim Abdi is the next manager. Amina Muhammad Abdullahi, she is here for financial group of the Chilani Development Organization, and you will see our emails and details. Thank you to all organizations, especially United Nations, UN, from the Chilani Development Organization in Barawa City, southwestern of Somalia. And this is Abdul Qadir Muhammad Abdi, the General Manager of the Chilani Development Organization of Barawa. Goodbye and thank you, sir and madam.